kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan oo caawa wararkeena ku soo qaadi doona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay maamulka ICC qaatimo oo qaaday talaabo military oo ka dhan ah xiriirka Puntland iyo sidoo kale Somaliland iyo ciidamo ka tirsan maamulka ICC qaatimo oo jooga gobolka Sanaag oo qaaday talaabo lagu go'doominayo xiriirka ganacsiga ee dhinacyada Puntland iyo Somaliland oo u muuqday muddooyinkii ugu dambeeyay kuwa ku socda si hagaagsan haddaba maxay tahay talaabada ay qaadeen awaamirta ay soo saareen ciidanka ICC qaatimo isla markaasina ka dhan ah agaga ganacsi ee soo socodka dhinacyada Puntland iyo sidoo kale Somaliland wararkii ugu dambeeyay ayaanu idiin soo gudbin doonaa wararka kale aan idila wadaagi doono macluumaadkeena qayb ka noqonaya waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay Ciro oo tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa gelinkii dambe ee shalay qaabilaya xubnihii ugu badnaa oo la taliyaashiisa haddaba muxuu Ciro u kala hadlayaa xilli intuu Jabuuti uu joogay oo qodobo muhiim ah ay ka soo wada hadleen isaga iyo sidoo kale Ismaaciil Cumar Geele maxaa fashiliyay kulankii la doonayay in Ciro uu la qaato madaxweynaha maamulka ICC qaatimo ee la sheegayay inuu ka dhacayo magaalada Jabuuti Ciro misaga ayaa iska diiday waxaad la wadaagi doonaa xog dheeri warintaasi ku aadan qodobada kale idiin soo gudbin doona wararkeena qayb ka noqon doona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya oo talaabo adag ka qaaday ciidamadii dhawaan garab siiyo mucaaradka isla markaasina ka soo muuqday garabka siyaasiyiinta mucaaradka kuwa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba maxay tahay talaabada yaab kale dowladdu ay ka qaaday ciidamadaasi wararkeena ayaanu ku soo gudbin doonaa wararka iyo wixii nagu soo kordho ayaa daawo doontaan kulankii baarlamaanka iyo wixii ka dhacay waan idiin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal warbaahinta Soomaaliyeed idiin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya mar kale fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub nagu soo biir adigoo subscribe saaranaya barteen YouTube korkumanaya wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha leh goor walba halkan ku soo baahino waa hagaagan ku bilaawno wararkeena caawa wararka naga soo gaaray gobolka Sanaag ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa ICC qaatimo ay qaadeen talaabo adag oo ay ku go'doominayaan isla markaasina ay ku jarayaan ganacsiga isaga kala goosha dhinacyada Puntland iyo Somaliland talaabadan ayaa la sheegay inay kaga jawaabayaan kadib heshiis afgarad oo la tilmaamay inuu dhex maray dhinacyada Puntland iyo Somaliland kaasi oo ku wajahan qaybsiga gobolka Sanaag arintan ayaa waxaa horaan banaanka keenay shakhsi sheegtay inuu yahay musharax maamul la yiraahdo Maaqir State iyada oo wixii xilligaasi ka dambeeyana dhinacyadu ay qaadayeen talaabo military waa maamulka Maaqir iyo sidoo kale maamulka ICC qaatimo saraakiil ciidan oo maamulka ICC qaatimo oo tagay gobolka Sanaag ayaa waxay ku dhawaaqeen in la jaray ganacsigii isaga gudbi jiray Ceergaabo ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo sidoo kale Hargeysa waxaana ay Boorame ilaa iyo dhulka markaas Somaliland aan iraade waxaana ay wacday ku mareen inaysan hadda kadib jiri doonin talaabadaasi ilaa iyo amar dambo madaba godoominta iyo qaadida talaabadan ayaa imaanayso kadib markii saacadii la soo dhaafay shakhsigaasi sheegtay inuu yahay madaxweynaha Maaqir oo sheegay in iyaga sidoo kale qaatimo ay ka wada shaqeynayaan in ay burburiyaan qorshaha lagu doonayo in lagu qaybsado gobolka Sanaag oo ay ku qaybsadaan dhinacyada Puntland iyo Somaliland haddaba arintan sidoo kale darafta kale waxay ku soo aadaysaa iyadoo saacadii la soo dhaafay jireen khilaaf xoog leh oo u dhaxeeyo dhinacyada qaatimo iyo sidoo kale Puntland oo ay markaas qaaday qaatimo oo gobolka Karkaar qayb kamid ah ay ku geysay ciidamo oo ay halkaasi ay ciidamo cusub ay kaga qoratay dhinaca kale 120 askari ayay qaatimo halkaas ay ka qoratay waxaana ay tagtay deegaan shaxda la yiraahdo oo loo arkay inuu yahay soodinta Puntland iyo sidoo kale qaatimo waxa dhinaca kale Puntland iyaduna ay talaabadaasi ay ku tilmaamtay talaabo sharciga markaasi baalmarsan oo koox maleeshiyad ah ay qaaday iyaduna ay ka jawaabi doonto saraakiil ciidan ayayna Puntland halkaas u dirtay marka wixii xilligaasi ka dambeeyay dagaalka dhinacyada banaanka ayuu yaalay waxa markaasi dhinacyadu ay qaadayeen talaabo oo kala duwan oo midka kale uu ku muujinayo cadowtooyo walow labada maamul ay yihiin laba maamul oo dirisa walaalaha balse arintan ayaa banaanka keentay xiisada dhexdooda isku soo wada duubay arrimahan ayaa waxa ay muujinayaan xaaladda ka soo cusboonaatay ee gobolka geeska kale tan madaxweynaha Somaliland oo shalay ku laabtay magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa wax walkaasi uu ka bilaabay kulamo kala duwan oo la qaadanayo kooxdiisa la taliyaasha ah kulamadan oo aanun macluumaad badan laga helin ayaa waxay imaanayaan iyadoo intii uu ku sugnaa magaalada Jabuuti caasimadda dalka Jabuuti oo kulamo kala duwan uu kula soo qaatay xubno kala duwan oo mas'uuliyiinta dowladda Jabuuti ah ay ka wada arrinsadeen arrimaha muhiimka ah ee xiriirka labada dhinac madaxweyne Ciro oo ka hadlayay kulankii ka dhacay magaalada Jabuuti ka hor intuusan ka soo tagin dalka Jabuuti ayaa waxa uu sheegay in dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen ay isla afgarteen Ismaaciil Cumar Geele
laakiin dhinacyadu ma aynay soo saarin statement rasmi ah oo ku aadan waxyaabaha sida wadajirka ah looga wada hadlay. Madaxweyne Ciro oo dib ugu laabtay dhinaca iyo magaalada Hargeysa ayaana kulamo kala duwan ka bilaabay. Haddaba dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falcelinayo safarkii Ciro uu ku tagay magaalada Djibouti, iyadoo dadku qaarna ay la yaaban yihiin waxyaabaha la filayay iyo wixii dhacay. Haddaba waxyaabaha la filayay maxaa ka mid ah? Ciro safarkiisu waxaa la qorsheynayay sida xogtu ay sheegayso in uu la kulmo inta uu Djibouti uu joogo madaxweynaha maamulka Khaatumo oo sida xogtu ay sheegayso isaguna ku casuubnaa magaalada Djibouti caasimada dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu casuumay. Haddaba xog aan helnay waxay sheegaysaa in madaxweyne Ciro uu markaasi ka meermeertay inuu si toos ah ugula kulmo dhinaca iyo Firdhiye, waxaana dhinaca kale uu soo jeediyey in wixii markaasi wada xaajood ah ama maxaabiis dhaafsi ah ama heshiis dhinacyada ah inuu garwadeen uu ka noqdo madaxweynaha markaasi dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa in Ciro uu ka galgashay inuu markaasi ogolaado inay Djibouti hal mar wada joogaan isaga iyo Firdhiye, waxaana uu go'aan u qaatay inuu ka soo tago kahor inta uusan Firdhiye tegin dalka Djibouti si aysan u bixin sawir qaldan oo dhaawacda siyaasaddiisa. taasi ayaa sababta baa la leeyahay inuu soo koobo safarkiisa isla markaasina uu degdeg dib ugu soo laabto magaalada Hargeysa. Haddaba siyaabooyin kala duwan ayaa looga falcelinayaa, laakiin hadda lama hayo xogta rasmiga ah sababta Ciro iyo Firdhiye ay u kulmi waayeen maadaama maalmihii ugu dambeeyay soo baxayeen warar arrimahaas la xiriira. geeska kaletana dowladda federaalka Soomaaliya waxay talaabo ka qaaday ciidamada mucaaradka lagu arkay iyaga oo gaadiidkooda saaran kuwaasi oo mucaaradku ay ka bixiyeen sawir ah inay yihiin badbaado qaran. haddaba dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaaday talaabo culus oo ka dhan ah ciidamada dhawaan lagu arkay iyagoo ku jira safka mucaaradka oo galbinayo siyaasiyiinta mucaaradka. dowladda ayaa go'aan ay soo saartay waxay shaaca uga qaaday in ciidamadaasi laga saaray liiska ciidamada Soomaaliyeed oo aanay ku jirin galka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayna yihiin kuwa ganaaxan. haddaba talaabadan oo waxaa shaaca ka qaaday wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isagoo oo tilmaamay in ciidamadaasi ay ku kaceen inay aqbaleen talaabo la doonayo in lagu soo rudxumeeyo ciidanka qaranka iyo sidoo kale amniga guud ee dalka. wasiiru dowlaha ayaa daliil uga dhigtay ciidamadaasi talaabada ay qaadeen inaysan sharciga waafaqsaneyn oo ay garab dowladda ku dhaliilayo amni darro ay markaasi amnigoodu ay ka shaqeeyeen. waxa uu yiri askari walba oo qaado wado baalmarsan sharciga waxa uu wajahayaa ciqaab adag. dhammaan askartii ka qayb qaadatay dhacdadii ciidamada mucaaradku ay ku qalqalgeliyeen amniga caasimadda isla markaasina ay ku soo bandhigeen dowladtuska aan saxda ahayn waxay wajihi doonaan talaabo sharciga waafaqsan. baarlamaanka Soomaaliya waxa uu yeeshay maanta kulan muhiim ah waxaana kulankaasi inta badan diiradda lagu saaray arrimo badan. arinta sida gaarka loogu gorfeeyay waxaa ka mid ahayd in mushaarka loo kordhiyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ku jira jiidaha dagaalka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. haddaba arinta sida gaarka looga doodayo waxay ahayd sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada geesiyaasha macusliyada ee beesha Xawaadle oo halgan adag ugu jiro dagaalka ka dhan ah Al-Shabaab. haddaba si weyn xildhibaanada ayaa siyaabooyin kala duwan isugu khilaafay arrintan iyadoo dad culusna ay ka dhalatay in mushaarka loo kordhiyo markaasi ciidamada ku jiro furinta hore ee dagaalka gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka macusliyada ee beesha Xawaadle. arrintan ayaa waxa ay gu xoogan ka dhaxdhalisay baarlamaanka dhexdiisa iyadoo xildhibaanaduna ay siyaabooyin kala duwan ay isugu khilaafeen. xildhibaanada qaar ayaa saacad uga soo horjeestay inay aqbalaan in baarlamaanku lacag laga jaro isla markaasina loogu daro lacagtooda marka la eego xildhibaanada lacagtii laga qaaday ciidamada macusliyada. arrintan ayaa gu xoogan dhalisay oo siyaabooyin kala duwan ayaa loo falanqeeyay. gudaana wararkeena waa nagitan nabadgelyo.